السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحدة يوتيوب channel كا أخو كورس official channel. سو هذا دمان أصحابته نقول بعد نداء كجوتان. مقعي ومعلم محمود حسن. إن شاء الله tutorial كان وحاقصو بردي دونا. سيدا مركز الله استعماله آلة مركز كمبيوتر كا. وليبا أنا هو استعماله هنا قيبت مركز basics كا مع أساس كا قيبا مركز وقفل أنا هو مركز استعماله هنا. sida aad u jeedaan halkan waxaa inoo muuqda desktop ayaa lahaa waa shaashada waxaa loo yaqaanaa desktop ayaa loo yaqaanaa computerka marka ugu horeyso ama gacantaada uu soo galo waxaad u baahan tahay sidii aad u shidi lahayd iyo sida aad markaas aad u dumi lahayd labadaba inaad samayn karto waa mid aad markaa muhiim u ah waana irid ugu horeyso markaas aad ka gali lahayd استعمالك مركب كمبيوتر كا هذه أبو بانتاي إن الدمسو كمبيوتر كا وعطيه دونتا هالكاس start menu أي دورنا start menu مركب نطلنا كدينا هالكاس وحنا كدورنا هنا power أي نفنينا وهالكاس أي على قدمية أما shut down أنت ومركز وين قدمي كرنا سوى كله وحالو دمية short كت أهان وحنا قدمي كرنا alta F4 inayna qabano habkaas ayaa markaa lagu dumi karaa computerka shiridiisuna qaybta keyboardka agtiisa ayaad ka heli kartaa badhan markaasi halkaa ayaad naguujinaysaa sidaas ayaad ku shiri kartaa computerka inkastoo computerka ay kala duwan yihiin qaybta markaasi laga shido midba meel ayuu markaasi ku leeyahay muuqaalkan waxaynu ku baranaynaa aasaaska markaasi computerka waxay inoogu horeeya habka ugu fudud loo qarin karo dhammaan icons-ka saaran shaashada computerka waxaad u baahan tahay marka hore inaad falaata dhigto meel bannaan ah aadan kor saarin application banaanka ayaynu dhigaynaa falaarta marka xigta waxaynu guujinaynaa right click ayaynu leenahay waxaynu ka dooranaynaa view ayaynu dooranaynaa view markaynu doorano waxaynu kasii dooranaynaa show desktop icons ayaynu dooranaynaa automatically si aad u jeedaan halkan waxaa qarsamay dhammaan icons-kii saarnaa shaashada computerka marka aan rabno inaynu dib u soo celino kaliya waxaynu leeynaa wadadii ayaynu raacaynaa right click ayaynu leenahay view ayaynu dooranaynaa kadibna waxaynu dooranaynaa show desktop icons ayaynu dooranaynaa halkaas sida aad u jeedaan waxaa soo muuqday dhammaan icons-kii saarnaa shaashada computerka sidee ayaa icons-kan loogu dhigaa kuwa markaasi waaweyn ah waxaynu dhigaynaa falaarta meel bannaan kadib waxaynu dooranaynaa right click waxaynu kasii dooranaynaa view markaas waxaynu kasii dooranaynaa large icons ayaynu kasii dooranaynaa sida aad u jeedaan dhammaan icons waxay noqdeen kuwa markaasi aad u waaweyn ayay noqdeen oo large ah sidee ayaa markaa small looga dhigaa haddii aad rabto inaad ka dhigto small waxaad u baahan tahay marka hore inaad falaarta dhigto meel bannaan ah aadan kor saarin application ama documents kale ee ku saaran shaashada computerka marka hore waa inaad dhigtaa meel bannaan ah right click ayaad leedahay kadib waxaynu dooranaynaa view markaynu doorano small ayaynu dooranaynaa icons sida aad u jeedaan dhammaan sanduuqyada waxay noqdeen kuwa markaa aad u yaryar ayay noqdeen sidee ayaa loogu dhigaa medium oo dhexdhexaad ah qof kasta markaa uu arki karo right click ayaynu leenahay view ayaynu dooranaynaa medium ayaynu ka dooranaynaa dhexdhexaad ayaynu markaa ka dhigaynaa icons-ka waxaa laga yaabaa icons-kan hadda sidaad u jeedaan waa kuwa markaasi habaysan ama arrange garaysan haddii icons-kaada ay isku qasan yihiin sidee ayaa loogu dhigaa kuwa markaasi ku arrange garaysan sidee ayaa markaa loogu dhigaa marka hore haddii icons-kaada ay isku qasan yihiin waxaad u baahan tahay right click inaad dhahdo view ayaad tegaysaa kadibna halkaas haddii ay tigta markaasi ka qaadan tahay halkaas ayaynu tigta saaraynaa hadhow markaa waxaad dhici doonto in dhammaan icons-kaada ay noqdaan kuwo arrange garaysan balse haddii tusaale ay sidan ay yihiin dhammaan hadda way habaysan yihiin waa arrange garaysan yihiin balse waxaan rabaa inaan idinku tusiyo tusaale ahaan sidee ayaa markaa laysugu qasaa right click ayaynu leenahay view ayaynu dooranaynaa halkaas ayaynu dooranaynaa to arrange icons ayaynu dooranaynaa
halkaas markaynu doorano tusaale waxaan soo qaadayaa sawirkaas waxaan qabanayaa left click ayaynu qabanaynaa kadib way soo qaadayaa halkaa ayaynu dhigaynaa sidaad u jeedaan halkaas ayaynu dhigaynaa kan isagana waynu qaadaynaa halkaan ayaynu dhigaynaa tusaale kan oo kale waynu qaadaynaa halkaas ayaynu dhigaynaa kan oo kale halkaas ayaynu dhigaynaa sida hadda aad u jeedaan qaybtaas yar waxaa ka jira markaasi sanduuqyada inay isku qasan yihiin sidee ayaa marka loo arranji garayaa mid kasta booskiisa markaas loogu celin karaa waxaynu dhigaynaa markaasi right click ayaynu leenahay kadib waxaynu dooranaynaa view ayaynu dooranaynaa view markaynu doorano halkaas waxaa ka maqan tigta ayaa ka maqan tigta ayaynu saaraynaa sidaad u jeedaan sanduuq kasta wuxuu ku laabtay qaybtii saxda ayuu markaa ku laabtay waxaa inoo xiga haddana sidee ayaa loo abuuraa sanduuq cusub waxaad u baahan tahay inaad abuurto sanduuq cusub ama new folder waxaad dhigaysaa right click ayaad leedahay meel bannaan adigoo dhigaya markaasi falaad kadib waxaynu dooranaynaa new ayaynu dooranaynaa new markaynu doorano folder ayaynu ka dooranaynaa folder sidaas markaynu u doorano kadib waxaynu u bixinaynaa magac ayaynu u bixinaynaa tusaale aqoon kororsi sidaas oo kale ayaa markaas tusaale ahaan qaabkaas ayaa markaa loo doortaa sanduuq loo abuuraa magacna loogu bixiyaa sidee ayaa haddana magaca loogu bedelaa sanduuqa habka ugu fudud markaas aad ugu bedeli karto right click ayaad leedahay kadib waxaad tegaysaa halkay ku qoran tahay rename ayaad dooranaysaa rename markaad doorto magaca ayaad ka bedelaysaa kadibna sidaan ayaad markaa ku bedeli kartaa qaabkaas ayaad magaca ugu bedeli kartaa markaad magaca bedesho tusaale magaca markaad bedesho ama sidaan oo kale markuu yahay falaarta waxaad geynaysaa meel bannaan ayaad geynaysaa kadibna muuska ayaad waxaad ku dhufanaysaa halkaas bannaanka kilig ayaad leedahay sidaad u jeedaan waa kaasa sanduuqii magaca waa laga bedelay haddii uu muuqaalka ku soo gaaray ama aad channelka ku cusub tahay subscribe leh haddii aad nagu xidhan tahayna aad ayaad umahadsan tahay sida wacan oo wanaagsan aad mar waliba inoola socotaan laagta roob inooga dhiga insha allah muuqaal dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh